السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. waxaan bilaabaynaa maanta duruus ku saabsan siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam, kitaabka khulaasatu nuur alyaqiin fii siirati sayid almursaliin uu iska leeyahay cumar cabdiljabaar. waa kitaab aada u yar insha allahu tacaala, marka wax badanna waan ka faa'iideysan doonaa. marka siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam fawaa'ideeda wax ka mid aan tilmaamaynaa, kadibna cashirka guda galaynaa insha allahu tacaala. fawaa'idda siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa ka mid ah, nafta ayay edbisaa, nafta ayay tahdiibisaa. kow, waxaa kaloo ka mid a fawaa'idda siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam laga helayo nafta inay ku abuurto iimaan xoog leh. waxaa kaloo ka mid ah, iftiin ayay siisaa qofka iimaankiisa saxiixa uu yahay, iftiin ayay siisaa. taariikhihii buu la soconayaa, juhdigii iyo wixii lala soo maray dacwadan ayuu wax ka fahmaya. waxaa ka mid a fawaa'ida siirada quwat lidaara, maamulka, inuu qofka awood u yeesho, maamulidda inuu awood u yeesho qofka. lanna nebiga sala allahu calayhi wasalam sidii uu u maamuli jiray saxaabadiisa, sidii uu u maamuli jiray ghazawaadkii uu gelayay ayaa laga faa'iideystaa. siirada fawaa'ideeda waxaa kaloo ka mid ah al istimsaaku bilxaq, qofka inuu xaqa ku dheganaado. lanna mar kasta oo qofka taariikhihii iyo wixii lala soo maray uu cilmi u leeyahay iyo dhibkii lala soo maray, waxay sabab u noqonaysaa inuu xaqa ku dheganaado qofkaas. waxaa kaloo ka mid a fawaa'idda siirada ku jirta inuu qofka isku qurxiyo wataxalli biashrafi alakhlaaq, akhlaaqda midda ugu wanaagsan inuu isku qurxiyo, maadaama nebigii laga sheekaynayo, saxaabadii taariikhahoodii laga sheekaynayo, dulqaadkii nebiga uu muujiyey laga sheekaynayo. marka qofka inuu asagana akhlaaqdaas wanaagsan ee nebiga uu ku tilmaamay oo laga sheekaynayo inuu asagana isku qurxiyo. intaas ayaan kaga soo gaabsanaynaa. fawaa'id fara badan ayay siiradu leedahay. siirada nabiga calayhi salaatu wassalaam waa laba qaybood markii laga waramayo. qeyb waxay ku saabsan tahay xayaatadii nebiga sala allahu calayhi wasalam qabla anubuwa, nebinimada ka hor nebiga noloshiisii, dhalashadiisii, geeridii wafaatu waalidihii, in laga sheekeeyo barbaarintiisii ilaa nebi uu ka noqday. marka maanta waxaan bilaabaynaa dowrkii u horeeyey ee nebiga xayaatadiisa sala allahu calayhi waaalihi wasalam. addowru alawal, qeybta hore, dowrka hore wuxuu ku saabsan yahay min xayaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, nebiga noloshiisii. nabiga sayidunaa muxamedun, nabigeenna waa muxamed. sayidunaa, sayidkeenna muxamedun weeye. huwa muxamed rasuulullahi, rasuulkii alla weeye, rasuulkii alla uu soo diray weeye, ila annaasi, dadka uu usoo diray, kaafatan dhammaan. nabiga sal alla alay wasalam dadka dhammaan baa loo soo diray, mid madow iyo mid cad iyo mid casba. risaaladiisa waa caam, wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas, waa kan alla subxaana wa tacaala. qul yaa ayuha annaas inii rasuulu llahi ilaykum jamiica. wa aakhiru alambiyaa, ambiyada kii ugu dambeeyey weeye, nebi ka dambeeyo ma jiro nebigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam. nebi ciise soo degi doona, nacam, laakiin nebi ciise wuxuu ku maamulahayaa oo dadka uu ku xukumayaa shareecadii nebigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam. wa imaamu rusuli, rususha imaamkoodii weeye nebigeenna sala allahu calayhi wasalam. jaa'a wuxuu la yimid biddiini, diin ayuu la yimid alislaamiyi ee islaamnimo loo nisbeeyey.
aladii diinkaasoo laa yaqbalu allahu alla uusan aqbalaynin yowma alqiyaamati maalinta qiyaama diinan diin hayrahu ayada aan ahayn diinta nebiga diin aan ahayn la aqbali maayo maalinta qiyaamo wa huwa nebiga min nasli saadaati qurayshin quraysh madaxyaasheedii ayuu ka soo jeedaa nasligiisa ashrafu qabiilatin dheh qabiilo midda ugu qiimo badan ayuu nebiga ka soo jeedaa oo fii makkata almukarama maka mukarama degto nebiga sala allahu calayhi wasalam nasabkiisa waa quraysh weliba quraysh qabiilka ugu sharafta badan ayuu nebiga ka soo jeedaa nasliga yani waxaa weeye waa farc wa huwa nebigu min nasli saadaati qurayshin quraysh madaxyaasheedii faraceedii wey nasliga sidaas kelimadaas ku macnay farac waay nasliga wayatasilu wuxuu galaa nasabuhu nebiga abtirkiisa wuxuu galaa biismaaciil bni ibraahim calayhim assalaam nebiyullaahi ismaaciil ayuu nebiga abtirkiisa galaa as'ila man waa kuma sayidunaa sayidkeena muxamadun ah tilmaamihii lambarka koowaad ba ku jawaabaysaa huwa rasuulu اllahi ilى الnaasi kaafa wa aakhiru اlanbiyaa wa imaamu الrusul bimaada jaaa nebiga muxuu la yimid min ayi qabiilatin abawaahu labadiisa waalid qof laba aabale ma jiree abawaah waxaa laga wadaa waa aabbihii iyo hooyadii baa la isku qabtay oo la isku tahniyeeyey marka abawaah baa lagu tahniyeeyey min ayi qabiilatin qabiiladeebuu kasoo jeedaan abawaahu labadiisa waalid nacam biman yatasilu nasabuhu nebiga abtirkiisa xagee buu galaa oo ku xiriira alkhulaasa yani bimacnaa alikhtisaar waaliijaaz hadalkiioo la soo gaabiyey wey macnaheeda sayidunaa sayidkeena muxamedun wey huwa rasuulu llahi weye ila nnaasi dadka dhammaan loo soo diray ajmaciina dhammaan jaaa wuxuu la yimid bidiin alislaamiy wa huwa carabiyun qurashiyun cadnaaniyun nebigeenna waa carabi waa qurayshiyun quraysh mid loo nisbeeyey cadnaaniyun qabiilka ree cadnaan marxaba الدرس الثاني نسبه ووفاة والده نبي أفتركيسة يجيردي آبه والده نبي آبه والد كان وحلقة وضع بمعنى آبه بالغة وضع لبدا والد بوالد والد هذا لكن هل كان وحلقة وضع آبه والده نبي آبه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب وابن مرة وسoo gaabiyey maadaama kitaabkeena uu gaaban yahay abtirka waa lasoo gaabiyey marka waan dhammaystirayna ibnu qusay ibni kilaab ibni mura ibnu kacbin ibnu lu'ay ibnu gaalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadar ibnu kanaanata ibnu khusaymata ibnu mudrikata ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nazaar ibnu macad ibnu cadnaan nabiga abtirkiisa oo dhammaystiranna sidaa weeye nabiga abtirkiisa markii laga hadlaayo waa saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa qayb la isku waafaqsan yahay sixadeeda waa laga bilaabo nabiga laga bilaabo ilaa laga gaaro cadnaan intaa abtirkaas waa la isku waafaqsan yahay qismiga labaad waa laga bilaabo wixii cadnaan ka sareeyo ilaa ibraahim ayadana waa qismiga labaad oo la isku khilaafay waayahay qismiga saddexaad waa qismi aanba sugnayn oon shakiba lahayn inuu wax jiraba uusan ahayn marka nebiga abtirkiisa marka laga hadlayo waa saddex qaybood qeyb sugan waa laga bilaabo moxamed ibnu cabdillaah ilaa ibnu cadnaan iyo qeyb xoogaa shaki uu ku jira qaarkeed waa cadnaan wixii ka sareeya ilaa ibraahim qeybna inaysan sugnaynba qeybta saddexaad waa qismun falaa yashuku ana fiihi maa laa yahbut waa ibraahim laga bilaabo ilaa aadam la isku xiro qeybta saddexaad waxaa weeye ma sugno inaysan sugnayna wax shaki a kuma jiro
wax badan oo israa'iiliyaad ah ayaa ka buuxo marka intaan mutafaqa ah in la xifdiyo wey wa ummuhu nabiga hooyadii aaminatu weye bintu wahbin ina bintu wahab ahayd ibnu cabdimanaaf ibnu zuhrata ibnu kilaab halkaasay marka ibnu kilaabkaasay iskaga soo dhacayaan nebiga abtirkiisa iyo nebiga aabihii iyo nebiga hooyadii abtirkooda ibnu kilaab iskaga soo dhacayaan fatajtamicu ummuhu hooyadii way la kulmi maca waalidihi fii jaddihi awowgiisa ayay kula kulmaysaa alkhaamisi ee shanaad wahuwa kilaab weye walaqad tuwafiya waa la oofsaday waaliduhu nebiga aabihii walxaal baa la oofsaday huwa asagu fii baطni ummihi uurka hooyadii uu ku jiro nebiga isagoon dhalanin ayuu aabihii geeriyooday sida saxiixa ah sida uu tilmaamaya ibnu kathiir calayhi raxmat ullah fii kitaabihi alfusuul fi siirati saxiixa tafsiirkiisana uu ku tilmaamo suuratu duxa markuu ka hadlayo sharax ayib wa cumruhu nebiga aabihii cumrigiisu 18 sana 18 sanuu jiray nebiga aabihii markii uu geeriyoonayay 18 sanuu jiray wadufina bilmadiina magaalada madiinana lagu aasay walam yatruk kama tegin lahu asaga shay-an wax oo min almaali xoolo la muuqdo oo uu ka dhaxlay aabihii nebiga ma jirin bal bacd alculamaa waxay sheegaan wax yar inuu ka tegay laakiin hadda musanifkeena raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahy waxba kama tegin kutubta kale marka ugu tegi doonaa masaladaas as'ila maa nasabuhu nebiga abtirkiisa muxuu yahay min jihati abihi xagga aabbaha maa nasabuhu nebiga abtirkiisa muxuu yahay min jihati ummihi xagga hooyada fii ayi jaddin jadkeebu tajtamicu ummuhu maca abiihi ay ku kulmahayaan mataa tuwafiya waaliduhu nebiga aabihii gormaa la oofsaday ayna dufina xagee lagu aasay alkhulaasa aabawuhu aabihii cabdullaahi bni cabdilmuطalib weye wa ummuhu hooyadiina aaminatu bintu wahbin weye yaltaqi tajtamic waa marka hore isticmaalaynay haddana wuxuu isticmaalay taltaqi waa laba ficil oo isku macno dhow taltaqi nasabuhumaa nasabkooda wuxuu ku kulmaa nebiga aabihii iyo hooyadii nasabkooda wuxuu ku kulmaa fii jaddihi alkhaamis awowga shanaad maata abuuhu aabihii nebiga wuu dhintay wa huwa fii baطni ummihi asagoo uurka hooyadii ku jira oon dhalanin hada wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam